dalka Nepal maxaa ka dhacay? Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa musiibadii ku habsatay dalka Nepal. Nepal waxaa ka dhacay musiibo aad u weyn oo daadad ah maalinkii Arbacada 26 Agoosto 2026. Barafka jiiritaanka weyn ee buuraha Himalayas ayaa sababay biyo, dhoobo, dhagxaan iyo baraf oo si xoog leh ugu soo fatahay dooxooyinka. Daadku wuxuu si gaar ah u saameeyay Raswa iyo aagga xadka Nepal iyo Tibet ee China, isagoo burburiyay guryo, wadooyin, buundooyin iyo xarumo koronto. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan ugu yaraan 579 qof inay ku dhinteen Nepal, halka 5 qof laga soo sheegay Tibet ee dhanka China. Ku dhawaad 2,500 oo qof ayaa weli la la'yahay labada dhinac. In ka badan 3,700 oo qof ayaa Nepal lagu samata bixiyay iyadoo diyaarado helikobtar ah lagu daadgureeyay kumanaan qof. Waxaa sidoo kale samaysmay haro weyn oo ku meel gaar ah oo biyuhu ku xirmeen, taas oo keentay cabsi laga qabo daad kale. Howlgalladii samata bixinta ayaa muddo kooban loo hakiyay, balse dib ayaa loo bilaabay markii khatarta la qiimeeyay. Sidoo kale ma ahayn dhulgariir caadi ah, waxa ugu weyn wuxuu ahaa jiiritaan iyo baraf buuraha ah oo keenay daad aad u xoog badan.